ugu horayn saynis jiirar laba aabe leh hadda waxay dhaleen jiirar laba aabbe leh oo aan hooyo lahayn hadda waxay dhaleen farac ay iyagu leeyihiin. Daraasadu waa horumar ku saabsan androgenesis, taas oo ah taranka jinsiga iyada oo la adeegsanayo kaliya walxaha hidde-socodka ee xayawaanka labka ah. Haddii aad rabto warbixintan, fadlan guji sabskraibsi. Aad u hesho warbixina intaan ka badan ha iloobin inaad nagu soo biirto. Mahadsani. Waxaan ku aragnay androgenesis ee jiirarka ka shaqeeya shaybaarka ka hor horaantii sanadkan. Cilmi baarayaashu waxay awoodeen inay soo saaraan jiirarka walxaha hiddaha ee laba lab ah iyagoo bacriminaya ukumo ka maqan walxaha hidde ee hooyada. Si kastaba ha ahaatee, ubadkii ka dhashay waxay ahaayeen madhalays oo ma awoodaan inay tarmaan. Daraasadan u dambaysay oo ay hogaaminayaan koor ka socota jaamacadda Shanghai Jiotong ee Shiinaha, taasi way isbeddeshay inkastoo farsamooyin badan oo la isticmaalay ay la mid yihiin tijaabooyinkii hore. Waxay diiradda saareen tafatirka gobollada kontaroolka daabacaada gaarka ears taxanahadna ee u shaqeeya sida beddelayaasha xakamaynta hidda-wadaha. Isku dhafka caadiga ah ee hidda-wadaha lab iyo dhedig ayaa bixiya isu dheelitirnaan caafimaad leh ee codayn egr, laakiin haddii kaliya hooyada ama hidda-wadaha aabbaha la isticmaalo, koodkani waxa uu socdaa haywire. Taasi waxay keenaysaa arrimo baan oo uur jiif ah iyo dhimasho. Sidaa darteed, saynisyahanadu waxay isku dayeen inay dib u habeeyaan egryadan farsamooyin sax ah oo tafatirka hidda-wadaha. Waxaa la xidhiidha casqaadmiga quruxda yaabka leh ee ay daaha ka qaadeen saynisyahanadu markii ugu horaysay. Waxaan isku daynay inaan hagaajino embriyaha androgenetic embryos annagoo dib u soo celinayna heerka epigenetic ee egryadan, ayay cilmi baarayaashu ku qoreen warqadooda la daabacay. Dadaalkayagu waxa uu noo suurtageliyey in aanu dhalino jiirar androgenetic ah oo kori kara ilaa qaangaarnimada oo bacrin ah, annagoo adeegsanayna agabka hidde-sidaha ee laga soo qaatay laba unug oo shahwo ah. Jiirarka lab. Labada jiir ayaa ka soo baxay laba qaybood oo dna ah oo lab ah. Hawada ka timid laba jiir oo lab ah ayaa lagu duray ukumaha jiirka iyada oo xudunta laga saaray qaybta haysata dnada dumarka. Cilmi baarayaashu waxay markaa tafatireen 7 iyada gaarka ah, cilladaha aan caadiga ahayn, kuwaas oo markii hore la ogaaday inay leeyihiin cawaaqibta ugu daran. Ukumahan ayaa markaa lagu dhex beeray jiirar kale oo dhedig ah. Nidaamkani waxa uu soo saaray 3 dhalasho oo nool oo jiir ah oo ka yimid 259 blastocis la geliyey embryos hore. 2 keliya ayaa ka badbaaday qaangaarnimada. Taasi ma laga yaabaa inay u ekaato heerka guusha gaarka ah ee cajiibka ah, laakiin way ka sarraysaa eber. 2 badbaadayna waxay aadeen inay si caadi ah u soo baxaan oo ay yeeshaan jiir caafimaad qaba. Inkasta oo ay caddahay inay jirto meelo badan oo lagu hagaajin karo marka la eego inta jiirarka dhashay ee u nool si ay u arkaan qaangaarnimada iyo sida saxda ah ee farsamooyinka tafatirka egr ay noqon karaan, waxay muujinaysaa in habkan tafatirka daabacadu uu shaqayn karo. Tani waa wax sahlan in la sameeyo marka ay jiraan 2 hooyooyin ah oo ku lug leh. Habka tafatirka loo baahan yahay waa ka yar yihiin oo fududahay in la fuliyo. In cilmi baarayaashu ay awood u yeesheen in ay la shaqeeyaan 2 aabe waxay kordhinaysaa muhiimadda daraasadda. Hadda waa in aynaan ka hormarin nafteena. Tani weli waa geedi sorod aad u adag oo ku jira jiirarka, kaas oo ku guuldaraysta wakhti badan, waxayna qaadan doontaa wakhti dheer ka hor inta aysan saynisyahanadu ka fekerin in farsamooyin isku mid ah loo isticmaali karo embriyaha bini'aadamka. Xitaa markaa, waxaa jiri doona su'aalo badan oo anshaxa iyo falsafada ah si wax looga qabto, laakiin ugu dambayntii cilmi baaristu waxay horseedi kartaa hagaajinta daaweynta bacriminta iyo fahamkayaga cudurrada ku dhasha. Inkasta oo waxtarka uu hooseeyo hadda, natiijadani waxay noqon kartaa tallaabo muhiim ah oo lagu gaaro androgenesis naasleyda, ayay qoreen cilmi baarayaashu.